Videogan waxaan kugu tusi doonaa qaabka push notification loogu soo diro WordPress website-kaada step by step. Kaba soo qaad kani waa website-kaada. Qofka markuu uu soo galo isla markiiba waxa uu soo dhacaya notification ama fariintaas oo oranaysa haddii aad jeceshahay waxaan soo dhigno ku dhufo allow oo nagu soo biir. Kadibna qofka markii allow uu dhaho halkaas ayuu wuxuu ka arkaa mar walba postiga ama article-ka aad soo geliso. Haddaba kaas ayaa waxa la dhahaa waa push notification. Su'aasha ayaa waxay tahay haddaba maxaad push notification ugu baahan tahay? Push notification wuxuu ka caawinayaa mar walba aad website-kaada post ama article aad soo dhigto inay si sahlan dadka ugu dhacdo fariin mar walba oo Google-ha soo galaan. Dabcan haddii aad leedahay blog website waxaa laga maarmaan ah inaad hesho visitors ama traffic badan si aad AdSense lacag fiican aad ugu samayso. Haddaba marka kama maarantid push notification in aad markaas website-kaada ku xirto. Haddaba si aan website-keena push notification ugu xirno waxaan qaadi doonaa kaliya 3 step. Step koowaad ayaa ah markaas one signal account inaan abuurno. Haddaba waxaad furaysaa tab cusub kadibna waxaad tagaysaa website-ka loo yaqaan onesignal.com sidaas ayuu u qoran yahay kadib internet waa website-ka markaas aan account ka abuuran doono kaliya markaad account-kan abuurno ayaa markaas ku xireynaa WordPress website-keena. Marka intaas aad ku website ku keeno waxaa kaliya ku dhuftaa meesha ay ku qoran tahay get started now iskaga dhufo. Kadibna marka waxa uu ku weydiinayaa account-ka abuura ayuu ku dhahay marka qaabka ugu fudud waxay tahay kaliya ku dhufo Google oo Gmail Google-haada ku abuuro oo ku xiro. Aniga hadda Google ayaan ku dhuftay kadib waa kana Gmail-ka ayuu u keenay marka waxa dhahdaa kaliya sign in ayaa leedahay. Kadibna markaasi meeshan cancel iska dhaha inaan verify gareyso ka rabaa. Marka meeshan waxaan ka dooranaa more ways to verify aan leeyahay kadibna tab yes oo mobile Gmail-kan ku xiran oo dabcan wuxuu ku leeyahay verify ka dheh oo numberkaas taabo. Marka numberkaas ayaan taabanayaa. Kadib marka inta ay ku keenaya waxaad ka doorataa blankan ee free-ga ahaan markaas waxa dhahdaa get started now. So get started now marka dhahdo inta ay ku keenaya meeshas koro oo one signal koro ku dhufo saa waxaas ka tagtay inta ku keenaya marka waxa dhahdaa meesha new plus app website ku dhufo kadibna meesha marka waxa ku qortaa magaca website-kaada ayuu ku leeyahay adon.com raac magaca website-kaada bis ku qor. Aniga hadda website-kan aad ka soo qaad qof client ayaan u dhisay xamish marka asigan ku xiraa kadibna marka website ka qorto meeshan ka dooro web ka dooro kadib marka web ka doorato bottom-kaas ku dhufo next dheh. Okay marka xigta marka platform dooro ku dhax meeshan dhexe ee ka dooro WordPress plugin ay ku qoran tahay hoos soo deg haddana ka sii dooro WordPress ka kaasa. Okay marka WordPress ka aad doorato hoos soo deg marka meeshan waxaa gelisaa magaca website-ka aad rabto inaad ku xirto magaca kaliya waa .com raacin. Okay magaca marka geliso linkiga website-ka geli ayuu ku dhahay meesha xigta oo site URL-ka. Okay soo marka xigto wuxuu iga rabaa inaan soo qaado linkiga website-ka soo website-kan ku xiro waa kana waa midkan hadda aan sheegay tab cusub aan furaa website-kii aan booqana linkiga website-ka oo kaasa marka waxaan leeyahay wada hal mar aan wada dooranaa control C inta imaana kadibna waxaan leeyahay control V. marka xigta meeshan ku dhufo wuxuu ka rabaa inaad soo qaadato icon ama astaanta website-kaada loogadiisa soo loogadu ay diyaarsanto xarafka n website-keeda ka bilowda waa loogada site korkiisa saaran inta ku jirta marka slide aan soo qaadanaa soo loogadu taas kaliya waxa sameeysa ku dhufo kadibna marka meelahan ku aadi waxa yar kor ka soo gaabay sidoo kale waxa yar hoos ka gaabay kadibna waxa dhahdaa markaas save. Okay marka intaas sameeyso kaliya waxa dhahdaa dana save marka ugu dambeysay intaas kaliya ayuu markaas naga rabaa. Step labaad ayaa ah inaan account-kan website-keena aan ku xirno. So WordPress website-kaada ima qaybta dashboard-ka kadib waxa dhahdaa plugins aad leedahay kadibna waxa leedahay add new ayaa leedahay. Add new marka dhahdo kadib meeshan waxa ku qortaa one signal ku qor saas u qoran tahay kadib internet oo raadi search leh waa kaas marka one signal waa push notification ay qoran tahay install now dheh. saa ujeeda 100,000 ku dhawaada la soo degtay ka badan kadibna waxa dhahdaa activate. Okay soo marka aan hoos soo degno hadda marka aan la soo degnay waa kaas oo lagu jiro hoos soo deg dhinaca bidixda u hooseyso ayuu markaas kaaga soo muuqda waa kaas kaliya waxa sameeysa marka ku dhufo isaga kadib marka meeshan waxa ka doorataa configuration ka dooro setup u baahnid. Okay configuration marka doorato kii hore ku soo laabo Apple ID-gan soo koobiyay intii maaw kadib waxa dhahdaa right click kadibna paste marka xigta haddana waxaad ku laabataa website-ka ku laabo kor kadib waxa dhahdaa copy API key-gan ku dhufo
kadib inta imaaw kadib waxaa dhahdaa right click dheh waxaan iska tir marka hore kadib inta right click dheh kadibna paste API-ga intuu leeyahay midka saddexaadna waxaa waaye Safari Web ID-gan copy dheh inta imaaw asna right click dheh copy paste saddexdooda macnaha inta ayaad markaas soo dhigaysaa. Okay, marka xigta waxaa sameysaa hoos soo deg. Okay, meeshaan ay ku qoran tahay markaasi theme-ka color-ka red guduud oo hadda waxaa rabto ka dhigi kartaa hadhow. Marka meeshaan usoo deg meeshaan marka waa meesha ugu muhiimsan message ay ku qoraysaa marka calaamada soo boodo. Soo hadda saa ujeedo meeshaan waxaa ku message ay ku qoraysaa hadda saa ujeedo fariinta Ingiriiska ku qoran. Marka waa bedelaa qoraalan soo copy-yeystaa jiro marka waxaan leeyahay control v paste waa soo celinaa marka qoraalkaas haddii aad jeceshahay taa isticmaali kartaa oo gaaban. kadib marka meeshaan bottomka allow iyo no thanks ka taa waa bedeli kartaa oo kor haddaan kor u baxo qofka waxa ujeedaa inuu laba option haysto no thanks iyo allow af Soomaali waxaad rabtaa ku qori kartaa. marka aniga hadda ma bedelay sidooda iska dhaafaa. marka intaas sameyso intaas leeyahay waxa ugu muhiimsan waxyaabahan kale waa sii bedeli kartaa hadda gudaha u gasho tusaale inta qofka markuu subscribe dhaho ama allow dhaho fariinta soo dhacaysa waa maxay oo message-ka soo maxaa leenahay kaba soo qaatad ku mahadsantahay camal hadda Ingiriis ahaan ay u qoran tahay thanks for subscribing ku qoran meesha u jeedo kadib waxaa leedahay waad ku mahadsan tahay inaad nagu soo biirto kale tusaale ahaan qaabkaas adeegsan kartaa. kadib marka intaas sameeyay intaas ugu muhiimsan kaliya waxaa dhahdaa marka save ayaa leedahay. soo markaan u gudubno step-ka saddexaad kaas oo ah markaas inaan tijaabino in markaas push notification-ka uu shaqeynayo in kale kaba soo qaad marka haddii aan tab cusub aan furno oo meeshaas ku qorno magaca website-ka oo intaan dhano isla markii waxa ujeedaa markaasi in uu soo boodayso calaamadda notification-ka soo kaliya waxaan leenahay markaasi allow aan leeyahay for example kaba soo qaad soo marka allow dhaad haddana kor wakaasa allow siida hoos marka fiiro waxyaraan sugno. okay hoos u jeedo marka qofku wuxuu leeyahay fariinta aan ku qorno waad ku mahadsantahay inaad nagu soo biirto af Soomaaliyeed aan ku qornay marka qaabkaas calaamadda push notification-ka marka website-kaad ugu soo xiri kartaa faa'iido leedahay waa aan sheegno marka intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkeena. haddii markaas aad u baahan tahay in website markaas lagu dhiso ha ahaado e-learning ama mid news oo sidaan oo kale ah ama mid markaas e-learning ama e-commerce waxyaabahaas oo dhan haddii aad u baahan tahay ama haddii website cilad uu ka qabo waxyaabahaas oo dhan u baahan tahay in laga caawiyo ama essence waad nala soo xiriiri kartaa. sidoo kale haddii aad u baahan tahay inaad barato platform WordPress sida loo dhiso news website noocan oo kale ah koorsaan ka diyaarin ayaa jirto website-keena waa ka helaysaa qaybta description-ka video-gana waa ka helaysaa link ugu soo horeeyaan dhigaa waad fiiri kartaa. haddaa u baahan tahay koorsadaas inaad iibsato waa ila soo xiriiri kartaa soo muuqaalka xiga iyo qaar badan.